بسم الله لما كسو قيب قلياشا وريان orthopedic Somali Association dhammaan dhaqaatiirta isbitaalada madaxda ka soo qayb gashay marti sharafta dhaqaatiirta dhammaan waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib marka hore waxaan u hambalyeynaa ururka dhaqaatiirta ee orthopedic ama lafaha oo sanadka hore intaba sameeyeen sanadka labaad sameynayaan conference-ga aadku u weyn waxaan la aada u mahadsantihiin waana waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo aasaasay in ururada la sameynayo oo professionka wixii laga rabay inay qabteen aan ugu hambalyeynaa waxaan leeyahay hambalyo waxaan kaloo rabaa inaan meeshaan ka xuso isku xirnaanta iyo wada shaqaynta iyo muujiyaan inay tahay mid lagu daydo ururadeena kaleete oo professionka ahna inaan ku dayano haddii ilaahay yiraahdo aadaan ugu mahadcelinaa marka labaad waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho conference waxyaabo badan ayuu soo kordhinayaa ugu horeeyaan in marka hore horta la ogaado waxyaabaha caqabadaha nagu ah waxyaabaha aan haysano oo benefitka ah gaar ahaan dhanka lafaha waxaan ognahay cilmiga lafaha inuu hore u socdo wax badan oo 5 sano ama 10 sano ka hor Soomaaliya aan lagu sameyn jirin in lagu sameynayo waxaa kaloo mahad weyn ah dadka sameynaya inay yihiin dhaqaatiir Soomaaliyeed ana taasna aadan waxaan u leenahay hambalyo waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa ama maadaama warbaahinta arrintan baahi doonto in dadweynaha Soomaaliyeed ay ogaadaan in wadankooda dhaqaatiir Soomaaliyeed afkooda ku hadlaayo walaalahooda ah u naxayo inay qaban karaan shaqooyin tiro badan oo hadda banaanka loo aado marka waxaan jeclaan lahayn inay ku kalsoonaadaan wadankoodana ay aaminaan waxaan kaloo aad ugu mahadcelinaa qaybaha sabeeyaan keenaan qalabka waxaan ognahay mar walba qalabyo cusub la keenaa qalabyada waa la bedelaa waxaas oo dhan waxay horumar u tahay oo muhiim ah in aan shaqada aan qabanayno inay hore u socoto aad iyo aadana ugu hambalyeynaa waxaan rabaa kaliya inaan inta laba wax ka dhaho dhaqaatiirta oo lafaha shaqo badan ay hayaan marka loo fiiriyana baahi weynaana loo qabaa marka aad tagtid isbitaalada arkaysa inta bukaan ay hayaan iyo inta jeesto iyo marka la arko inay shaqo weyntaas lagu ogaanaa alxamdulillah dhaqaatiir badan soo baratay laakiin kulli waxay wada joogaan caasimad waxaan jeclaan lahayn inay qaarkood gobolada tagaan maamul goboleedyada iyo goboladana waxaan ka codsan inay tafsiilaadka iyo wixii lagu shaqeeyo ayagana inay barbaad galayaan xataa haddii aysan base ka dhiga karin in la sameeyo periodical inay u tagaan sida campaign oo kaleeto in loo tago dadkii wax lagu celiyo aaday u fiican because dad badan oo gobolada jooga ayaa waxay codsanayaan inay dadku u imaadaan dadka qaar dhan ma soo wada awoodaan inay Muqdisho imaadaan dad badan aan u baahan lafahana ma aha in la jabo kaliya waxyaabo badan oo loo qaban karaa jirto qaybaha aan isleeyahay muhiim weyn yihiin waxaa ka mid qaybaha caruurta oo ilaa hadda pediatric orthopedic inuu jiro ma ogi hadduu jiro wax fiican waaye because pediatric surgery anaga dawaa haysana pediatric orthopedic waa jeclaan lahayd inay maxay ahaato dad badan ay fellowship ahaan u soo sameeyaan kadibna wax badan lagu qaban karaa oo ilmaha ay u baahan yihiin marka waxaan leeyahay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad aada u mahadsantihiin qaybta oo orthopedic multidisciplinary waxaan u maleynayaa dad badan la shaqeeyo sida dhaqaatiirta maxay ahaato imaging-ka iyo ayaga iyo dhaqaatiir badan oo isla shaqeysa waa dhammaantoodna hadda waxaan u maleynayaa wadankan inuu horumar weyn ka gaaro waxaan leeyahay aada u mahadsantihiin isbitaalada waa u mahadcelinaa fureen departmentyadaas waaweyn oo lagu shaqeeyo dhammaan waxaan leeyahay hambalyo ka urur dhaqaatiir ahaan waxaan leenahay hambalyo waana soo dhaweynaynaa conference-gan iyo kuwa kale soo socda insha Allah